قفك مؤمن كحوق يليه والنبي يقول كو احرص على ما ينفعك وحد كد داشا وإلى لسا وحك وأنفعيه nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababta u kala noociyana waa masalada tan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madarro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadatid wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaan u wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan oo aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacak calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya bitacbiiri ahli alcasri waa waxay yidhahdaan kun muntijan aw kun iijaabiyan qof wax soo saar le ahaw qof wax tara ahaw qof wanaagga qabta noqo noloshaada maalintii waxaad qabanaysaa waa inaad isweydiisaa ma manfac adduun buu kuu leeyahay mise manfac aakhiro kuu leeyahay haddaad waxa labadaa ka dhex arki weydo waa wixii lagu yidhi ka tage ka tag haddaad manfac adduun ka weydo ama manfac aakhiro ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekeeyo oo dhammi waxtar ma leh kubadaha iyo cayaaraha iyo waxa la daawado oo dhammi waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhegaysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn baa dadku waqtigiisii ku qaado nebiguna wuxuu tilmaamayaa min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacniih qofka muslimkaa islaamnimadiisa wanaaggeeda waxaa ka mid ah isagoo ka taga waxaan macno u samaynayn tarkuhu maa laa yacniih waxaan isaga khusaynin waxaan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dhaa haddaad ka warranto laba gaaloo meel isku dilay kii la dilay adiga waxba ku tari maya warkooda iyo akhbaartooda waxba ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dad ka sheekeeya inteeda ugu badan leh waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna cayaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wadoo dhammi aktaruhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfaca ku lahaynina aan wax dhibinina waa inaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduuniya mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad wakhtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sida awgeed buu nebigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal intaa kadib buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wastacin billaah ilaahayna kaalmayso ilaahay kaalmayso macnaheedu waa in qofka mu'minka ahi wax kasta oo uu qabanayo ama uu ka fakarayo wuxuu rumaysan yahay inuu ilaahay gacantiisa ku jiro qofka mu'minka ee dhabta ahi guruur kuma dhaco iyo cujb isla weyni
iyo anaa caqli badan iyo anaa karti badan iyo kaama rumaysana qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay ilaahay inuu mar kasta u baahan yahay mar kastaba inuu ilaahay u baahan yahay saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ina baray mar kastoo inuu ilaahay is hortaagna inaynu akhrino iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahu adaanu ku caabudayna keligaa baanu kaa kaalmo dalbayna qofka muslimka ahi mar kasta baahidiisa waa qof ilaahay u bandhiga waa qof muujiya inuu yahay addoon daciifa waa qof rumaysan laa xawla walaa quwata ila billaah wuxuu rumaysan yahay waa kanzun ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu qays buu nebigu yidhi makuu tusiyaa kanz min kunuuzi iljanna khasnadaha jannada ka mida makuu sheegaa faqultu balaa yaa rasuula allah haa buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xadiidka saxiixayn ku yaal nebigu wuxuu ku yidhi markaa laa xawla walaa quwata ila billah weeyaan laa xawl xeelad malihi iyo awoodtoona ilaa billaahi mooyaane ilaahay oo aan gargaarsada mooyaane anigu xawl iyo xeelad iyo quwo iyo itaal midna malihi qofka muslimkaahi markaa waa qof baahidiisa ilaahay u bandhiga nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam saxaabigii uu jeclaa ee mucaad ibnu jabala wuxuu ku yidhi yaa mucaad wallaahi innii la uxibuk ilaahay baan ku dhaartay mucaadow waan ku jeclahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasuu mucaadna wuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo aniguna waa ku jeclay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu yidhi kelmadaan ku baraya ee salaad kasta dabadeed ha ka tegin mar kastoo aad salaad tukato farala erayadan ku dhawaaqa erayadu maxay yihiin waa erayada adkaarta aynu akhrino markaynu salaadaha tukanno allahuma acinnii calaa dikrik wa shukrik wa xusni cibaadatik wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam mucaad ibnu jabal waxaad tidhaahdaa ilaahayow iigu gargaar xuskaaga inaan ku xuso aanan ku ilaabin inaan kuu mahadnaqo aanan kaa gaaloobin iyo si fiican inaan kuu caabudo ilaahu kaa iigu gargaarnay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu inagula dardaarmayaa kow ixris calaa maa yanfacak wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho waxaan ku anfacay inaad ka tagto isla markaana inaad ilaahay tala saarato